بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيرت هذه السلام يا إذا أهانتي بميل كستو أجوبتان فضلا هدي أنا عصب تهي صوب وقبيت كينان يوتيوب كان كلين هيا عبد الحكيم ماستيكو فضلا سبسكرايب كسارو جنبلير كان فرو سي آد نغطيت دعوضها كوات بحال كان أنسوق دينو midda kalena waxaan ku codsanayaa akhyaari asxaabay waxaan ku codsanayaa horta page kan oo YouTube ka aan ku leeyahay Cabdixakiin Mastico fadlan page kan hala kala kiciyo war page ka hala kala kiciyo page ka waa iska hurdaa page ka waa hurdaa page ka no isku heesta xaqiiqatan war page ku soo yaaca page ka loo kala kiciyo subscribe ka noo saara waaya asxaabta soo dhawaada marka dhawaanahanba waxaa la qorsheeyay wajiga labaad argagixisada dagaalkii yani maadaama facekii hore laga soo gudbay argagixisada oo yani dhul badan laga xoreeyay hadda waxaa bilowday facekii labaad oo argagixisada lagula dagaalamayay argagixisada waxaa waaye hadi jeerna de waa ognaho dee dhibaata ummadda ku hayaan haddii aan laga qaban oo laga hortagin dee dhibaatadaasi waxaa weeye kolleytaba waa waxay ummadda ay ku hayaan ummadda la dhex joogaan weeye marka waxa weeye hadda in badan waxaa aragnaa meelo badan oo yani laga saaray inay dib ugu soo laabanayaan oo yani ayagoo humbaaleynayo oo aan tabar dhaaxa aan lahayn ayay waxay ku soo laabanayaan goobihii hore looga saaro horta looga racdeeyey bay dib ugu soo laabanayaan waxaan ognahay hadda webigan jiinka hiiraan oo koonfurta magaalada beledweyne tuulooyinka ku teesan webiga jiinkaas in waa hore laga saaray oo laga racdeeyo oo bariga hiiraan dhan laga saaray balse waxay sameeyaan inta badan qoraxsinka ayay ka imaanayaan halkaa qoraxsina joogaan webigaasi kasoo gudbayaan ayagoo yani humbaaleynayo dadka istustusayo oo yani si loo yirahdo al-shabaabaa soo gudbay shabaabaa yimid shabaabaa kana si loo yirahdo ayaa ayagoo wax yaroo aan tiro dhaaxaan aan lahayn ayay waxay kasoo gudbaan webiga dhinaca waxay ka yimaadaan qoraxsinka meelahaasay joogaan markii la aadana waa cararaanbo fagaartay jeedinayaan waa sii ordayaanbo waxaa weeye marka maanta ugu dambeysay cali jeete wuxuu tagay deegaanka booco iyagoo halkaasi ka cararay webigana ka gudbo dhinaca galbeedka u gudbay ayaga hadda waxay naf ka dhiganayaan webigaas ayaa idin dhexeeyo ma ladii soo gudbi karo xaqiiqatan waxaa ognahay webigaa inuusan cidna celin karin haddii loo baahdana asaga laftigiisa laga gudbi karo balse meelo kalentoo badan oo laga soo galo ayaa iska banaan oo ma la helaya dhinaca qoraxsan haddii la aadayo marka waxaan leenahay nimankaa marka waxay caadeysteen had iyo jeer inay yani ay webigaa kasoo gudbaan oo dhinaca bariga usoo gudbaan laamiga iyo meelaha iyo tuulooyinka iyo aagga webiga jiinkiisa iyo meelahaas ayay intay yimaadaan soo is istaagaan dadka istustusaan waana karaayey waa warkooda muxuu yahay taqaanaan ya warkooda muxuu yahay waa joognaa ogaada ma aynaan bixinay waa joognaayey waa warkoodu wallahi wax tabar kalaa iyo awood kale ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto waxa weeye wuxuu ku soo aruuray hadda sheekadu wuxuu ku soo aruurtay war waa joognaayo ogaada ma aynaan bixine waana ka siyar oo la yaqaano xataa oo hebel la ragga hor kacayo marka waxaa la rabaa waxaas in la soo marka waxaa la rabaa marka la soo afjaraa la rabaa waxaa lagu soo afjari karaa marka ayadoo marka dhinaca qoraxsinka la aado maadaama wejigii labaad yani dagaalka la cilaamiyey waxaa la rabaa marka nimankan qoraxsinka waati la sheegay oo la yiri qoraxsin ayaa laga bilaabayaa faceka labaad gobolka hiiraan hadda kolleytaba waxaa waaye muddana kasoo wareegtay umalaa bil iyo abafa kasoo wareegtay ama bil meelahaasa kasoo wareegtay xilligii oo gudoomiyaha gobolka uu iclaamiyey marka kolleytaba waxaa weeye nimankan wadada laamiga hadi jeerna waan ka hadlaa aniga laamigaas dad buu u xiran yahay oo rabo deegaanadooda inay ku nooleystaan si wadadaas u xiranto waana la ogyahay dadkaasi waa shabaab waana la yaqaanaa magac shabaab iyo magac qabiil intaba way kusoo duulaan tageen si wadada laamiga ay u xiranto oo deegaanada dhankaas ay u furmaan oo tuulooyinkooda u shidmaan ayaa horta wadadan u xirantaa sababtoo ah xilliga wadadan xiran yaa yaqaan mataqaanaan xilli hore ahayd oo carrada iska nabad ah oo wax dhibaato aan jirin oo ayaga ay haystaan dhulka inta badan ayayba wadadaas gooyeena xireen somaydaan garan marka waxaa weeye markii kolleytaba bulburda la qabtay ay horta wadada jareen kow intii ka horeysana gaabsi iska ahayd bay meelaha taagnaayeen laakiin markii bulburda la qabtay ayaa wadada gebigeed ba horta yani xididada u siibeen ay yidhaahdeen dhaqaalihii laamiga baabuurta yani ku bixin lahaayeen oo kasoo gali lahay kuwaan maamulkan halkan hadii soo maraan markaasee buq iyo ceel cali meelahaasi u fariisteen waxay u dhigtaan jagboontayaal waayahay marka waxaa weeye kolleytaba sidee tahaba waxaa weeye waxaa la ogyahay in nimankan
arxanlaawayaasha ah inaysan cid bini aadana isxaan u samaynayn wax wanaagana aysan lahayn marka waxaan leenahay insha allah wejiga labaad waxaan ka sugnaa waa iyadoo qoraxsin lagu duulo qoraxsin jallaqsi bulo berde beledweyne saddexdaas gees waa in laga soo galaa si ay laamiga horta u nabad galo ummadana ugu nabad gasho mar dambana aysan u dhicin inay horta kasoo gudbaan dhinaca baalkii qoraxsinka iska imaan webiga iska soo gudbin taa waa in falankeeda galaa marka waxaan leeyahay asxaabay fadlan youtube-ka kusoo yaaca youtube-kan subscribe-ka saara gambareelkana furo insha allah baryahan waa xoogaa waa ka caajisay maadaama markaan socodkiisa iyo aan arkaa xoogaa aniga dhamaan iska niyad jabay marka xarfaanay hala kala kiciyo niyadan halii dhiso subscribe-kana ha lagala daalo baalkan soo dhawaada asxaabay dhammaan wada salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu